وفدي ay kala hogaaminayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray dalka Djibouti. Wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, halka wafdigu uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka mid yahay Gudoomiyaha Guurtida Somaliland Mudane Salebaan Maxamuud Aadan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Yaasiin Maxamuud Faratoon, Wasiirka Ganacsiga Somaliland Mudane Maxamed Xasan Saajin, Wasiirka Xanaanada Xoolaha Somaliland Mudane Siciid Sulub iyo mas'uuliyiin kale. waxaa sidoo kale isla maanta dalkaasi Djibouti gaaray Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Ahmed, waxaana si heer sare loo soo dhaweeyay dhammaan wufuudda gaartay dalkaasi Djibouti. waxaa waxyar kadib furmi doona kulanka u dhaxeeya dhinacyada kala matalaya Soomaaliya iyo Somaliland, isla markaana ay goobjoog ka noqon doonaan Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, madaxweynaha dowladda aan walaalaha ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo diblomaasiyiin kale. wali lama helin ajandaha gaarka ah ee shirka looga hadlaya, balse waxaa xusid mudan in ujeedada guud ee shirka ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. shirkan ayaa ah mid muhiim ah isla markaana ay ka dhursugayaan ummadda Soomaaliyeed qodobada ka soo bixi doona, iyadoona la filaya inay ka soo baxaan go'aano farxad geliya ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan inta danaysa midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ee lagama maarmaanka ah. waxaana saacadahan soo aadan ku soo gudbin doonaa dhammaan wararka ku saleysan kulankan xiisaha leh ee dhexmaraya Soomaaliya iyo Somaliland iyo wax walba oo ku soo kordho. waxaana nagala socon kartaa barta Facebook aan ku leenahay, gaar ahaan page-keena Qarankaab TV, iyo barta YouTube aan ku leenahay ee Qarankaab TV.